Waking up today was no accident. He gave me health and happiness. Alhamdulillah for this precious gift. Live today, not tomorrow. Ya Allah, I thank you every time. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aanu joogno maanta macadka farsamada gacanta ee Garowe kaas oo muddo ka jiray magaaladan Garowe ayaa maanta waxaanu marti u nahay inaan ogaano sida waxyaabaha ka socda macadkan waxa ay yihiin. marka sida darteed waxaan rajaynayaa Cismaan inuu faahfaahin naga siiyo qaybtan cusub oo hadda la sameeyay. Cismaan warbixin naga sii. waa maasan tahay walaal Cabdiraxmaan. magacaygu waa Cismaan, waxaana isduwaha macadka farsamada gacanta ee Garowe. macadkan oo la asaasay 1994 bilowgiisa horena ay hirgelisay Islamic Development Bank, bankiga Islaamka. laakiin duruufo jira awgeed wuxuu shaqadiisa si toos u bilowday 2006 ilaa ay haddana waxa uu soo saaray arday gaaraysa ilaa 13,000 oo arday oo bartay xirfadaha qaybooda kala duwan, ha ahaato tubistaha, ha ahaato harqaanka, ha ahaato kombiyuutarka, ha ahaato qurxinta haweenka iyo dumarka, ha ahaato qaybta mataqaanaa ii sheeg plumbingka, korontada, hotel managementiga, xirfado aad iyo aad u tiro badan oo runtii qiimo weyn ugu fadhiya bulshada Puntland gaar ahaan reer Garowe iyo guud ahaan Soomaaliba baa halkan lagu bixiyaa. macadkan kaligiis ma macado kale waaweyn baa jira oo isaga la mid ah oo guud ahaan Puntland ka jira. macadkan marka waxyaabaha uu sida gaarka ah oo culeysku u saaray wuxuu ahaa tayeenta iyo shaqo abuurista dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland in ay helaan xirfad isla markaasna ay ku shaqeystaan. waxaan oran karnaa dhalinyarada ka soo baxday macadkan farsamada gacanta ah oo hadda aan sheegay 13,000 intooda badan waa waxa loo yaqaan self employed oo iskood ay u shaqeystaan. qaybna waxay ka shaqeystaan private sector-ka oo qayb mataqaanaa ii sheegay ganacsatada la shaqeeyaan. qaybna waxa weey waa dawladda iyo laamaha kala duwan bay la shaqeeyaan. waxayna kula shaqeeyaan xirfadii halkan ka barteen ama koronto ha ahaato ama computer ha ahaato office management maareynta iyo maamulidda xafiiska ha ahaato ama ha ahaato mataqaanaa ii sheegay tubista ama waxa loo yaqaan plumbing ha ahaato ama noocyada kala duwan ma garanaysaa oo xirfadaha ah. sidoo kale hablaha xirfadaha sida gaarka u bartaan macadka ka barteen waxaa kamid ah xirfadda dawaarka ama harqaanka loo yaqaano, xirfadda beauty salonka beautificationka ama haweenka qurxinta, hotel managementiga, kombiyuutarka, waxa loo yaqaan tie and dye oo ah dharka iyo samayntiisa qaybaha kala duwan. qaybtan cusub oo dhawaan la hirgeliyay waxaa hirgeliyay hay'adda JIZ oo runtii kaashanaysa wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo iskuulka farsamada gacanta ee Garowe. marka qaybtan hadda dhismaha waa qaybtii barashada beeraha oo loogu talagalay in arday hadda aanu hayno oo engineering courses ah oo ay baranayso beeraha iyo qaybta interior design-ka oo iyadana ah qurxinta iyo naqshadeynta dhismayaasha iyo qaybta energy-ga oo ah korontada iyo tamarta ah. saddexdaas qaybood baa hadda waxay yihiin qaybaha ugu waaweyn oo la oran karo waa xirfadaha ilaa 3 sano soconaya 4 sano oo hay'adda JIZ iyo wasaaradda waxbarashada iskaashanaya ee iskuulka ka fulinayeen. muddo badan bayna soo soconaysay, arday badan baana ka aflaxday oo hadda dhiganaysa kuwana way ku jiraan, kuwa cusubna hadda ku soo biirayaan. dhismahan marka hadda qurux badan u jeedaan waa dhismihii ku soo biiray macadka farsamada gacanta kaasoo si gaara loogu talagalay ardada baranaysa beeraha. wuxuu leeyahay waan arki doonaa insha Allah qaybihii kala duwanaa oo hadday tahay laboratory-gii ama labkii beeraha lagu baranayo mataqaanaa, hadday tahay soil testing-gii, hadday tahay analysis-kii, hadday tahay in lagu ogaado mataqaanaa noocyada kala duwan dhirta la abuurayo quality iyo tayada ay leeyihiin iyo guud ahaanba cudurrada ku dhici kara meesha lagu ogaan lahaa wey. marka insha Allah waxaan samayn doonaa hal baan u mari doonaa galaasada insha Allah arki doonaa. waan u mahadnaqayaa tiimka maanta na soo booqday oo Cabdiraxmaan hogaaminayay. aad baa u mahadsantahay Cismaan. dhismahan goormaan la idinku wareejiyey? dhismaha waxaan ugu wareejiyey 2 isbuuc ka hor baan la wareegnay. marka hadda waxaynu ku jirnaa maanta waa 20kii bishii June. marka waxaan la wareegnay 10kii bishii June baan la wareegnay isbuuc ka hor. marka goormuu ardada ay wax ku baranayaan oo waxbarashadiisu ay bilaabayaan? waxay si toos hadda waxaynu ku jirnaa xilligii mataqaanaa break ama summer break ee xilliga fasaxa ahaa. marka 8 insha Allah bisha 8 ayay si toos insha Allah ardaydu soo gali doonaan. laakiin waxaa jira galaasyo hore oo halka ka muuqanaya oo iyagana galaasyadii Islamic Development Bank hirgelisa ah. laakiin waxaa dib u casriyo ku samaysay
isla jicaysad iyo wasaaradda waxbarashada iskaashanaya waa tegi doonaa insha Allah iyagana arki doonaa qaybtaas arki doonaa marka qaybtan hadda waa qaybta cusbeed weeye oo marka waxaan ka bilaabay kan laabka ka bilaabana insha Allah okay la yiraahdo insha Allah kan waa laabkii loogu talagalay ardada beeraha ah inay ku sameeyaan practicalka hadday tahay soil analysis-ka ama macnihii tijaabinta iyo testikareynta ciidaha noocyadooda nafaqada leh ay u kala duwan yihiin haddii ay tahay seedskii ama abuurkii quality-gooda iyo tayadooda guud ahaan in lagu jeegarayo ardada halkan baranaysa inay u isticmaalaan qaab practical ah taasoo ka saacidaysa ardaygii markuu galaaskii theoretical ku soo qaato casharaan soo qaato si practical ah wixii uu soil energy iyo wixii uu bartay iyo mataqaanaa cilmiga la soo baro beeraha ah inuu si practical oo halka ugu fulin karo marka meeshan waa meeshii laabkii loogu talagalay beeraha taasoo runtii aan oran karo waa markii ugu horreysay oo qaab noocan oo kale ah ama dhismo noocan oo kale ah ama macnihii iskuul xirfadeed oo farsamo gacan oo qaabka u dhisan garaysan laga hirgeliyo Puntland waan uga mahadnaqaynaa ciddii hawsha ka soo qayb qaadatay oo ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada iyo GIS ismaanow markuu falgalo oo ardadu ay waxbarashadii halkan ku bilowdo maxay faa'iido ah oo keeni kartaa beeralayda reer Puntland runtii wax badan bay ku soo siyaadi kartaa oo hadda markaad fiirisid dhaqaalaheena wuxuu ku tiirsan yahay waa xoolaha iyo beeraha ardadii marka polytechnicada ahayd oo farsamada gacanta oo looga baahnaa ardadii polytechnicada ahayd oo looga baahnaa dalkeena in ay soo saarto dhalinyaro ku qalabaysan aqoonta beeraha isla markaasna aqoonaan u xambaarsan practical ahaan u xambaarsan taas ayuu dabaraya baahidaas ayuu daboolaya marka halkan waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo oo hadda waxyaabaha guulaha waxaa ka mid ah ardada naftirkeeda insha Allah arki doonaa greenhouse-ka halka ku yaala insha Allah oo hadda ardada ay ugu beereen iyo qudaartii tamaandada ka soo baxay insha Allah arki doonaa ardada in wixii ay barteen ay already ay practical ku sameeyeen si dhaqsaba ah inay greenhouse-ka naftiisa wax ka xireen isla markaasna iyaga ay abuureen waana arki doonaa insha Allah tusi doonaa marka taas ayay ka qayb qaadanaysaa insha Allah kuwa kala tagayna okay kan waa galaaskii lagu baranayay theoretical classeska ahaa oo ardada beeraha ay cashir ahaan ugu qaadan lahaayeen waa kan macallimiintii qayb ka mid ah ku sugan marka insha Allah waa galaas ka mid ah galaasada insha Allah ay ku dhigan doonaan casharadooda way galaaskan marka sidaas uu design gareysan yahay waxaa loogu talagalay halkii marba 15 ilaa 20 qof in la baro si macallinka uu anigu 25 qof uu si macnaheedu kooban u qaban karto la markaasna uu la wadaagi karo fariinta marka saas ugu talagalay marka runtii waa galaas loogu talagalay in galaasada ka mid ah casharada caadi lagu qaadanayo kuwan waa theoretical classes kuwa loo yaqaan weeye ama galaasada casharada caadi ka baxaya waa kan marka sidaas oo kale ardada halka naftirkeeda waxyaabaha looga baahan waxaa ka mid ah cashar keli loo dhigi maayo iyaga naftirkooda ayaa waxay leeyihiin mararka qaarkood oo sessionskan iskuul farsamo gacan waxa loogu bixiyay wax kale ma aha galaaska naftirkiisa waxaa ka jira ardada session loo diray inay soo diyaarinayaan presentation soo diyaarin cashara mata assignment ay guriga ku qaadanayaan isla markaasina ardada hortooda iyaga ay soo sameeyaan salaadku haday beero tahay wixii loo diro oo mataqaanaa ii sheeg cashara ah waa meesha ku soo bandhigi lahayn naftirka loogu talagalay waxaan karnaa waa dhismo ama goob ama bii'a ku habboon runtii in wax lagu barto marka dhan walba laga fiiriyo marka intaasaan insha Allah iyadana oran lahaa bilaadu siday tahay dadku markii waxaan aad u haysaan aad u gudbisaan dadku say u qaabilaan u qaataan inta badan waxaan maqalnaa dadka reer garooway waxbarashada noocaana ma ii jecla dadka meelaha kale ka yimid ba halka wax ku barta taa iyada maxaa ka jira hadda marka la fiiriyo qodobka su'aasha runtii waa su'aal muhiim ah oo weydiiyay Abdiraxmaan dhanka qaabilaadda iyo hilowga ama baahida u qabaan bulshadayna inay ku soo biiraan farsamada gacanta 5 sano ilaa 6 sano ugu dambeysay isbedelooyin baa dhacay waayo qofka markuu xirfad leeyahay oo gacanta ka shaqaysan karo iyo qof aan xirfad lahayn macna waa kala ka yani different u dhaxeeya sida awad waxaan oran karnaa dadka hilow iyo baahi weyn bay u qabaan oo hadda koorsooyinkan xayisiin dad badan baa ku soo biiraya oo isu qoraya oo doonaya in xirfadan ka faa'iideystaan beeraha maadaama ay tahay khayraadka ama resource ugu weyn ee Soomaaliya haysata ay ka mid tahay beeraha iyo xoolaha runtii
waa galaaskii labaad weeye oo ka mid ah qaybihii hadda aan soo marnay. Halkan hadda waxay ka kooban tahay waa 2 dabaq weeye dhismahan, waa dhismo 2 dabaq ah, waa 8 galaas iyo 2 workshop weeye. Marka hoos waxaa ku taala 3, korna waxaa ku taala 5 iyo 2 workshop insha Allah mid ka mid ah aan soo aragnay. Marka kan waa galaaskii labaad oo ka mid ah dabaqa hoose oo dhulka floor ugu hoose ku yaala, galaaskiisa labaad weeye oo isagana lagu barto galaas theoretical ah. Hadda halkan waxaa ku qoran waa plant science weeye, waa cilmigii macnaheedu ii sheeg abuurka ama beeraha baalka ku yaala oo sessionada u qaateen. Marka sessionada waa sessionada ka mid ah ardada beeraha ee bartaan oo halka ay ku dhigtaan. Runtii waxaan oran karaa guud ahaan marka la fiiriyo hilowga iyo ardada rabitaankooda marka la fiiriyo inay ku soo binaan filiga beeraha ama qaybo kale oo iyadana interior design oo naqshadeynta qurxinta dhismayaasha oo runtii aad loogu yar oo dad kale oo dibadaha ka yimaada ay gacanta ku hayaan Asian ha ahaadaan ama dalal kale oo Carabaha ka yimaadaan. Hadda waxaan oran karnaa in filigaasi aan doonayno inaan anaga daboolno oo soo saarno arday kawaadir ah oo aqoonta interior design-ka naqshadeynta qurxinta dhismayaasha decorationska iyo beeraha ku qalabaysan oo bulshadooda macnaheedu mustaqbal fog iyo kan dhowba wax way ku soo siyaadiyeen. waa arrin aad fiican weeye. waxaan rajaynaynaa kulley ardayda halka ka soo baxda baahi badan oo ka jirta Puntland صح wey maasha Allah. lacagtana qaybtan waa qaybtii kale oo ah computer workshopkii oo waxaan kaloo ugu talagalnay waynu ognahay waxaynu joognaa qarniga 20aad adduunka waxaa ku soo kornay agabkan casriga computeriska ah. Marka ardadayna qayb ka mid waxaan u diyaarinay in computeriska ay ku bartaan halkan, waayo cilmi hadda la baranayo aan computer section la socon aqoon ma noqonayso. Marka qaybtan waa qaybtii ardada ugu talagalnay inay computer sessionska ay ku qaataan laga bilaabo ilaa iyo macnaheedu qaybta ugu hooseysa oo Office-ka ah ilaa iyo Microsoft Office ilaa ay hardware-kii oo xataa fududiisii cilad bixintiisii mataqaan inay caadi u shaqeyn karaan. wax la wixii computer program ku shaqeeyo dhan in halka lagu tirin gareeyo oo computer application-ka ugu weyn tahay. qaybtan waxaan ugu talagalnay waa multipurpose class wax la dhaho ama workshop aan ugu talagalnay in waxyaabo badan ay kaga faa'iideysan karno. Laakiin hadda waxaan si gaar ah hadda rabnay inaan ugu qalabayno qaybta electrical workshop-ka naftirkiisa inaan loo isticmaalo mararka qaarkood. Marka steel-kan waa multipurpose classes, waxyaabo badan baa loo isticmaali karaa. Haddii shirar lagu qabsanayo lagu qabsan karaa. Laakiin hadda qorsheyna waxaa noogu jira sida macnihii workshop ahaan maadaama aad u disagraysan yahay inaan qaybta electricalka workshop ahaan aan kaga faa'iideysano insha Allah, maadaama workshop ahaan u disagraysan yahay insha Allah inaan kaga faa'iideysano qaybtaas aan u talagalnay iyadan. gawaaridan idinkaale soo maasaska gawaaridan waxay ka mid ahaayeen gawaari hay'adda JIZ ee ka support garaysay macadka farsamada gacanta oo baahi keentay transportation la'aan oo gaadiid la'aan ardayda lagu soo qaado iyo ardayda meel fog ka imaanayso. asiga markaan dalbanay JIZ iyo wasaaradda iska kaashaday taasa marka waxay keentay in basaska noo keeno. marka basaska waxay diyaar u yihiin ardayda inay geeyaan xaafadoodii kana soo qaadaan oo marka ay fudaato in ardayga si fudud glass ku imaan karo fursadii waxbarasho ka faa'iideysan karo isla markaasna la celin karo. marka waxbarashadana waa free oo programkan hadda ay naga saaciday JIZ ee guud ahaan qalabayntan iyo dhismahan iyo macallimiin iskuul ka shaqeynaysa waxa gacanta ku haysa hawshiisa hay'adda JIZ. marka taas waxay keentay marka in waxbarashadu ay noqoto waxbarasho free ah oo aan wax lacag laga qaadan qofka. qaybta engineering courses-ka qaybteen tagna hadda marka waxaan tagaynaa insha Allah qaybtan aan ku bixino short courses-ka baan insha Allah tagaynaa. qaybta marka waa qaybtii tababarada gaagaaban oo adiga wixii hal sano ka yar ah aan ugu talagalnay weyn oo ahaato macrifadaha korontada ahaato tubista ahaato harqaanka ahaato cilaanka ahaato cunto karinta waa ku jirta cunto karinta ahaato. marka iyadana qaybahaas aan ugu talagalnay. qaybo kale oo iyagana waa workshop-yada kale waaweynaa waa kuwa halka waxaa kaloo laga hay'ad JIZ hadda dhawaan xariga laga jiro ku jirta kaatinka ama maqaayadaas casriga ah oo loogu talagalay ardada ma garanaysaa in ay dee refreshment-ooda ku qaataan. taas waa mas'uulo casriya oo runtii maasha Allah aad iyo aad u wanaagsan oo quality-gooda oo isugu jiro hable iyo gabdho wiilal isugu jiro oo labada ka kooban ilaa iyo 16 suule ama mas'uul taylota. qaybta marka waa qaybtii Islamic Development Bank ay hirgelisay xilliga idin sheegay 1994 laakiin si toos ah shaqada loogu bilaabo 2006. marka qaybta iyadoo badanaa waxaan u isticmaalay short courses
laakiin dhismahan awal waa dhismo oldie waxaa dib u casriyeen iyo dib u dhisid ku samaysay hay'adda GIZ oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo iskuulka dib u qurxin baa lagu sameeyay daawayn baa lagu sameeyay marka galaasiyada dib baa loo qurxiyay wuu dhisnaa laakiin modification baa lagu sameeyay oo renovation dib baa loo qurxiyay theory classes waa theory classes marka waa galaasidii hadday tahay awal qayb kamid ah waxaan isticmaali jiray inta dhismaha la dhisin ardadan interior design-ka iyo galaaskaas hadda beeraha ku qoran macnaheedu waa galaasidii aanu isticmaalaynay kan hadda gacanta laga jiray weli looma guurin hawshiisa hadday socotaa sharaf loo raraa ardadii marka qaybtan waa galaasidii caadiga theoretical glassiska qaybo kale waxaa jira oo iyagana halka ku yaalo oo hadday tahay harqaankii hadday tahay makaanikadii hadday tahay mataqaana korontadii iyo gadaal bay ku yaalaan laakiin kuwan shantan galaas ilaa kaa laga soo bilaabo 1 2 3 4 5 shantaas waa theoretical glasses waa gartay labada geeska xigan waa xafiisyadii iskuulka weyn insha Allah laga maamulay waa garanay marka xagaan kuwaasana aadin insha Allah inta waa ka tagaynaa marka waxaan oran karaa markaan soo koobo runtii qaybahan xirfadaha hoose qaybtan engineering ayo 3 sano 4 sano programkan GIS la wado wuxuu nagu soo biray 2020kii ilaa hadda wadna waska 4 sano soconaya laakiin wixii ka horeeyay waxa ugu badan oo runtii nala shaqeynaya hay'adaha internationalka ma ha aadan hay'adahan Save the Children ha aato maybe hay'adahan NRC NCA hay'adaha soo dhan baa programyadan gacanta ku nagala shaqeynayay oo si free ardada ha u badan ama IDPs ka ha ahaadaan dadkaas ma arta soo barakacay ama ritaaniga dadka soo laabta ha ahaadaan xataa dadka qaxootiga qayb kamid ah halkan baa ku barayna xirfadaha farsamada gacanta ah marka halka waxa ka soo baxay 13,000 oo arday oo xirfadahaas qaybada kala duwan bartay oo maanta 90% ay shaqaysato oo iyaga isku shaqaystaan sheeka soo baxday baa jirto oo meel walba gaartay dadka halkan wax ka bartay inay u badan yihiin dadka barakacayaasha carruurtoodii laakiin dadkii kale ay wali aqbalin inay farsamo gacan ay u arkaan wax hooseeya taa iyada maxaa ka jira ma taa isbedel weyn baa ku dhacay oo hadda waa taa ku sheegay ilaa 16 sano oo hadda ugu dambeysay isbedel weyn baa dhanka bulshada magaalada degan ku dhacay markay arkeen waa run marka hore dadka aadka xirfadda u xiiseeyay dadkaas qaxootiga oo xirfadda aad u fahansanaa oo muruqmaalka loo yaqaano ammaan baawarkaaba aad u jeclaa laakiin hadda bulshada kale ka badanba oo haddii hadda maanta xirfad la soo xayisiyo nambarka ugu badan waa dadka magaalada degan wey aan libis aan barkacaash ahayn ma dhici jirtaa meel furan oo aan geli karno oo qalabkii yaallo wixii yaallo yes hadda qaybtaas waxaan tegaynaa waxaan gelaynaa insha Allah qaybtaas korontada insha Allah waan gelaynaa soo ma hadda waxaan gelaynaa korontada inoo dambaysa insha Allah waxaanu gelaynaa qaybta harqaanka oo runtii oo dumarka habla aad u badan 13,000 waxaas leeyahay number aad u badan oo kala bar ku dhow ayaa habla ka soo baxay waayo xirfadaha ugu badan oo marka xirfad la bixinayo cid la shaqeynaysa iyo ardadaba ay aad ku jecel yihiin filigan gabdhaha waxa kamid ah harqaanka kamid ah ama dawaarka waxa loo yaqaan Soomaaliga ama tailoringka marka kan waa tailoring workshopkii wuxuu isugu jiraa galaaskii caadiga ahaa oo practicalka lagu qaadanayay iyo casharka lagu qaadan labadaba marka ardayga halkiisa soo fadhiya oo macalinka halka uu sharaxaya wuxuu yahay harqaanka noocyada u kala baxo qaybihiisa qaabka uu shaqeeyo makiinada cilasaarkeeda qaab theoretical ahaan ugu dhigaya kadibna practical ahaan baa halka lagu jagreynaya kulli makiinadahaas oo dhan waa functional waa kuwa wada shaqeynaya oo active oo shaqeynaya way marka taa waxay ka saacaysaa qofka soo kursigiisa fadhiya inuu cashirkana qaato wixii uu qaatana halka uu practical ku sameeyo gabadhii way ka saacidaysaa hablay waxa ay tolayaan ayaga la yimaadaan mise idinkaas may waa learning material baa agabka ay u baahan yihiin iskuulka ku barfargareeya badanaan waxa gacan ka siiya marka cid la shaqeynaysa qalabkii waxbarashada waxa ka taageera macnaheedu cid la shaqeynaysa iskuulkaana siiya markaana sameeyo haday tahay dharkii iyo wax alla wixii looga baahnaa bandadii dharkii dhan oo baan noocyada kala duwanaa marka dhigayalkan hadda halkaas qaanadaas way iga xiran tahay waxaan tusi lahaa dharka ay sameeyeen qaybo kamid oo ku jira iyagoo halkaan macnaheedu aan dhignay marka qolo walba baxda markii xaflad loo qabanay waxay soo bandhigaan wixii dhar ay toleen wax soo saarkooda productionkooda ayaa waxa lagu siiyaa imtixaanka qayb kamid ah way inay wax soo saaraan qiimeynta qayb kamid ah way kaliya ma imtixaan laga qaado inay wax soo saaraan iyagu wax sameeyaan baa qiimeynta kamid ah taas marka waxay keenaysaa qofku inuu isagoo wixii la yaqaan in hadhowdii markuu shaqada dhameysto tababarka dhameysto imtixaanka laga qaado certificate-kii wasaaradda waxbarashada ay bixiso kadibna programkan hay'adda nagala shaqeynaysa tusaale ahaan kale safe ka soo qaado kala inay bixiso startup kits ko kala tusaale ahaan toolskii ama qalabka qofka u shaqeysan lahaa setup kan oo kala dhameystiran ama toolkit kan oo dhameystiran in la siiyo gabadhii ama hooyadii kadibna ay suuq la sabto bandadii dharka ay ku shaqeysan lahayd gacanta laga saaro shahaadada la siiyo
saddexdeedood markay suuqa tagto suuqa shaqada markaa dee qofku si fudud buu dhex gelayaa taasaa marka waxay keenaysaa marka xataa in aan u samayno shaqo abuur badan hablaha si gaar ah waana xirfadaha hablaha ay sida gaarka u daneeyaanu xirfadan aqaanka ah iyo beautificationka qurxinta hablaha bay aad u jecel yihiin marka xirqaanka intaan kaliya hadda lagu bartaa inta kale lagu bartaa waa laba qaybood mid kalaas meelka ku yaala waa laba workshop waa kan gaa ku dhegan baahida jirta ma daboolaya mise weli waa wallahi dee lama oran karo oo baahidu way badan tahay waa loo baahan yahay dad xirfadlayaal ah oo dadkan hadda xirfadda ka shaqeeya marka loo fiiriyo community hadlayaa macnaha arday yes oo la oo meeshii ka buuxsantay ma jirtaa baan ka wadaa may waa badanaa wuu daboolaa oo nambarka ardada loo qaadanayo labadan galaas marka loo fiiriyo nambarka loo qaadanayo wuu dabooli karaa wuu dabooli karaa ku filanyaha badanaa ku filnaadaa hadda waxaan aadaynaa qaybtaas korontada ah mechanicalka iyo auto electric insha Allah soo mari doonaa qaybta dabka baabuurta laakiin waxaan aadaynaa qaybtan korontada electrical workshop waa waaxdii korontada weyn مسؤولها waa mas'uuliyad dhawaan la hirgeliyay way waa dhismahaas la socdaan masashadii la socdaan waa ku cusbaa weyn sorry qaybtan waa qaybtii electrical workshop waa meel practical lagu sameynayo oo shaqo ka socota weeye marka hadda summer break bay ku jiraan ardayda iskuulka guud ahaan waa xirnaa laakiin way soo laabanayaan insha Allah dhawaan adigu laba bil kadib insha Allah soo laabanayaan marka qaybtan waa qaybtan ugu talay electrical workshop-ka marka insha Allah waxaan jecelnahay xogaakii barashada qolkii barashada practical ahaan koronto lagu baranayay oo loogu talagalay ardayda inay korontada iyo cilad bixintooda iyo rakibidooda iyo xiridooda in si practical u sameeyaan halkan waa ka aragtid iyaga halkan ku xirxiraya kadib ku sameynaya kan waa qaybtii solar system kan waa solar systemkii oo macnaheedu kooban marka isna ku sameynayaan kan waa solar panelski weeye way ku sameynayaan mataqaanaa isha practical qayb solarka marka labadaba waa la baraa solarka iyo korontada labadaba waa la isku AC iyo DC labadaba si maanta alternative labadaba isku bartaan saadoo qofka uu qof mataqaanaa labadaba ku shaqeyn kara xirfad ahaan marka kan waa workshopkii korontada kan waa greenhouse-kii kuwan waa short cost badanaa qaybtan waa greenhouse-kii weynaa oo hadaayaa idii sheegayey greenhouse-kan wuxuu la socdaa sectionkii beeraha ama waaxdii ama qaybtii beeraha marka ardayda barata beeraha baa waxay ku sameeyaan practicalka hadda waxay abuureen muddo adigu 2 isbuuc meelaha ku dhow wax yar buu hadda abuuran yahay marka iyaga abuuray runtii sameyntiisa iyo marka la xirxiriyo qayb bay ka yihiin waayo waxaa laga rabaa qoliyaha xirxiriya xataa shirkadda waxaan u sheegnaa ardayda inay qayb kala noqdaan si waxaan u bartaan inay greenhouse-ka install garan karaan abuuri karaan waxaasoo dhan inay aqoon qayb uga noqoto marka insha Allah iyadana waa arki doonaa abuurka iyo waxa gudaha ku jira ilaahay qaybtan waa qaybtii aan hore u soo sheegnay oo ahayd greenhouse-kii qaybtan waa tomatadii ama waa yaanyadii oo dhawaan la abuuray waxa abuuray oo meeshaan geliyey oo ka shaqeeyey oo saysinkan iyo tubooyinkan meesha dhigay waa ardadii beeraha weeye cid ugu tagtay ma jirin iyagaa ka shaqeeyey waxaan iyagaa laga rabaa dhowda wax soo saarkooda iyo dalagooda iyo qualitygooda iyo testigooda iyo la socodkooda iyo waxaasoo dhan iyo waraabkooda iyadu uma baahna waraabka bio system bay ugu socdaano meel un baa looga soo furaya haantaas uga imaanayaan oo sida standardka caadiga greenhouse ugu shaqeynaysa waa greenhouse caadi weeye waa haddaba qoyan waa qoyan biyo baad ku socda marka iyada si toos isu waraabinaysa marka dhawaan baa la abuuray hadda waxaan ku abuurnay yaanya hadda ku abuurnay laakiin waxaan jecelnahay insha Allah qaybta ka dambaysa insha Allah in laga dhigo doono nooc kale oo mataqaana kamid ah itemska insha Allah يعني إن شاء الله نوعية كلام باين إن شاء الله كواب هذا لك هذا توميتا يعني هذا تقصي بالله ونحسب إن شاء الله qaybtan hadda aan ku jirno waa qaybtii farsamada gaar ahaan ama gawaarida baabuurta ama gawaarida cilad bixintooda hadday tahay dabka baabuurta hadday tahay motorada iyo cilad bixintiisa marka auto mechanic baa la qaybtan ama mechanics workshop way waa workshop lagu baranayo mechanicada iyo auto electric dabka baabuurta labadaba si parallel arda lagu baray marka qaarkoodna
auto mechanic baa loo isticmaalaa oo birta kaliya marna waxa la isticmaalaa auto electric labada isku jira marka badan labada arday waa laga dhisay labadiiba system baa laba system baa loo baraa labada filin mechanical inuu yaqaan auto electric inuu yaqaan dabki baabuurta inuu garanayo marka injinkii oo u jeednaa waa kan waa injinkii weey kan waa agabadii kala duwanaa oo loo isticmaalayay cilad bixinta mataqaana ay sheegay gawaarida kan waa solarka naftigiisa mararka qaarkood u baahan yihiin kan waa batarigii badii hadda ardayda meeshan ka baxday waxaa jira geerisho ama xarumo magaalada ku yaala oo shaqeyno marka ardayda saan ka baxday si toos waxay practical iyo xashir labadaba ku qaateen si toos ay geerishka u tagaan cilmiga ku practice kareen qaab internship ahaan oo inuu wixii mataqaana qaab practical meesha ugu qabto kadibna waxaa laga yaabaa muddo kadib markuu la shaqeeyo mechanicalka runtii waxaa geerishkii inuu isaga meel furto ku shaqeysto runtii arday aad u badan oo hadda aniga marka aan gaari aan wato meelaha geerishada tegay arday halka ka soo baxda meel kasta ugu tagaan taasoo marka tusinaysa marka runtii in iyadana wax weyn ku soo siyaadisay dhanka mataqaana xirfadaha bulshadana marka hore aysan aqoon oo aad ugu yaraa in hadda dhalinyaro badan la helayo aqoontaan leh oo baabuurta iyo cilad bixintooda iyo dabkooda fahansan kan waa solarkii hadda solarkii weeye solarkan uu doobay markii hore injiinku ah wuxuu motorkii annagoo weli uga jirnaa barnaamijkayagii maanta ku saabsanaa macadka farsamada gacanta ee magaalada Garowe warbixintii aan ka diyaarinaynay ayaa haddana waxaa ila fadhiya madaxa macadkan injineer Maxamed Diiriye Laala oo aan filayo dad badani inay garanayaan injineer waxaan rabnaa marka hore bal macadkan goormaa la aasaasay sababtase keentay in macadkan la aasaaso maxay tahay baahida keentay in macadkan la sameeyo cabdiraxmaan shiino waa mahadsan tahay maxamed cabdiraxmaan aad iyo aad uu mahadsan yahay runtii doorka aad ummadda dhiirigelinteeda ka qayb qaadanaysaan oo maasameedmigu waa muhim ummadda in wax loo sheego oo la yidhaahdo war bani aadan baa tihiin wax qabsada iskoolkan waxaa la asaasay adigu 20 sano ayuu hadda furan yahay sababta loo asaasayna waxay ahayd dadka Soomaaliyeed iyo reer Puntland in dhalinyaradu ay farsamo bartaan oo ay wax qabsadaan oo dad isku filan ay noqdaan waa garanay marka dadkii reer Puntland ma noqdeen kuwa iskuulkan yimaada dugsigan oo ka faa'iideysta su-aashaas waxaan ku weydiinayna waxaan ogahay inay dadka weli u jajabnayn xagga farsamada gacanta runtii cabdiraxmaan saa ogtahay adduunku wuxuu horay ugu maray waa farsamo soomaalida iyo khaasatan reer Puntland dad u jajaban ama fahamsan ama jecelba farsamada maaha iskoolku wuxuu tababaray ilaa 13,000 oo dhalinyaro oo shaqo la'ayd ayuu tababaray rag iyo haween iskugu jira 13,000kaas boqolkii 90 hadda way shaqaystaan oo shaqooyin kala gedisan iyo Soomaaliya Puntland iyo dabadaba ka qabtaan mushkilada ugu weyn waxa weeye waalidiinta iyo dhalinyaradu waxay maskaxdooda ku jira ilmahaygu waa inuu jaamacad ka baxaa waxa xaqiiqa ah boqolaal jaamacada ka soo baxayaan shaqahayn oo maqaayadaha fadhida adduunka dadka ka soo baxay secondary-ga ama 8-ka boqolkii 80 waxa loo leexiyaa farsamada gacanta boqolkii 15 ama 20 oo ugu darajada sareysa ayaa jaamacadaha dhigta hadda dad badan oo reer Puntland waa fahmeen maadaama dhalinyaradii dhibtootay oo ay shaqo laadahay oo dariiq ay fadhido in farsamadu ay muhiim tahay marka hadda way soo kordhayaan dadka u arka farsamadu inay muhiim tahay runtii ma jiraan marka waxyaabo caqabada ah oo idinka hor yimaada dhaqaale ahaan dhaqaalaha xagga dhaqaalahaas ayaa idinka caawin runtii iskoolka caqabadaha ugu weyn oo horta haysta waxa weeye saan horey u sheegay dhalinyaradii iyo waalidiintii oo aaminsan farsamadu inay tahay wax liita oo haba yaraatee aan ku soo habaansay oo aan jeclaanayn taasina
يعني waqti qaadanaysaa markay arkeen dhalinyaradii ka baxday oo wax baratay ama farsamooyin kala gedisan bartay ama ha ahaato tuugista ha ahaato ama koronto iyo solar ha ahaato ama beero ha ahaato ama dhismo ha ahaato ama cooking cuntada si loo kariyo ha ahaato ama hotel management ha ahaato oo shaqaysta markay arkeen hadda qalbigoodu waxaa gashay war farsamada aan ku dadaalno sidaasaa hadda dad badani hadda farsamada u intarsaaraynayaan runtii waana muhim faqriga iyo gaajada wax looga bixin karayaa waxa way bani aadamku inuu fakero oo inta wax barto u shaqaysto runtii haddii kale weligaa haddaad gacanta u horsatid hay-ad ajnabiga dhulkaad gelaysaa nololba bani aadamba ilaahay wuxuu ku abuuray wax qabsa buu ku yidhi oo bani aadam noqo oo shaqayso marka dadkuna aad bay farsamada runtii awal ma jeclay laakiin hadda waa soo kordhiyaan dadka maarfan dugsiga iyo wasaaradda waxbarashada xiriir ma ka dhexeeya hadduuse ka dhexeeya waa xiriir intee la eg iskool private ma aha waa iskool dowladeed ummadaane wuxuu ku xiran yahay wasaaradda tacliinta sare xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn baana iskoolka iyo farsamada ka dhaxaysa meel fiican buuna marayaa aad iyo aad marka saas darteed dadkii maadaama ay u arkaan farsamada gacanta wax liita wacyigelin gaar ah iyo mid guud oo la sameeyo oo dadka loo sheego faa'iidada ay leedahay farsamada gacanta ma jirtaa aad iyo aad hadda waa bilownay wasaaradda iyo marka waxaa muhiima dowladda iyo dadka waxgaradka culamaada dadka adigu businesska xoogaa lacagta haysta dadka aqoonta leh in la iskaashado oo dadkan loo jiheeyo war waxbarta markaa shaqaysta adigu dowlad shaqaha ka sugine iskaaga wax u abuuro oo ilaahay maskax buu ku siiyey maskaxda ilaahay ku siiyey adigu hal abuur keeno farsamada aan dhalinyarada barro keliya farsamo keliya ma barno dhalinyarada waxaan baraa inuu nin isku kalsoon yahay oo hal abuur leeyahay oo uu noqdo nin lugihiisa ku taagan iyo camalkiisa iyo maskaxdiisa hadda qorista ardayda goorma hadda bilaabaysa indee ay jirto waa arday cusub qaadan hadda waxaa la bilaabayaa adigu dhowaan hadda usbuuc gudihiisa waa la bilaabayaa hadda waxaan ugu talagalnay ardaydu iskoolada waa xiran yihiin iskoolada waxaa la furayaa agosto 1 yaa la furayaa bil iyo markaas iskoolada xiran yihiin dhalinyaradii secondary eed ka soo baxday short courses wax la yiraahdo oo degdeg ah yaa rabnaa inaan barro ama koronto ha ahaato ama tuubiste balaamiga ha ahaato nin walba koorsiga uu rabo yaa rabnaa inaan barro oo 15 beri 2 bilood ku barto kuna shaqaysan karo isagoo hadhow secondary hadduu dhigto inuu yahay nin wax yaqaan oo gurigiisa hadday koronto ka xumaato bedelan kara haddii biyo ka jabaan bedel bani aadamku waa inuu awood leeyahay war adugu isku kalsoonu marka koorsayaasha hadda la bilaabayaa waxaan ka codsanayaa marka waalidiinta iyo dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan koorsayaasha tababaradaas gaagaaban oo aad bilaabaysaan oo si qofka asiga noloshiisa iyo gurigiisa ugu filaada ah ma wax dhaqaalo ayaga laga rabaa jira ay bixinayaan si waa bilaash waxaa waalidiintu ardaydaas waxay la baxayaan fii yar lacag yar bay la baxayaan oo badnayn ay la baxayaan 2 bilood buu soconaya beriya bar 2 bilood markaa hadhow qofkuna wuxuu ka soo baxaya isagoo awood u leh koorsigu qaatay inuu ku shaqaysan karo fahmi karo maalis ma jiraan hadda marka mashaariic kale iyo cid kale oo caawinaysa iyo dhismayaal kale oo aad rabtaa inaad dhismahan ku dartaan si meesha ay u noqoto meel intaan ka sii weyn hadda iskoolku waa iskoolka ugu weyn runtii Soomaaliya la yiraahdaa 30 qol buu ka rakiban yahay waxaan dhisay hadda dhismaha soo aragtana cusub jaasadkaan dhisay waa 12 qol ilaa 13 qol weeye waxaa la rabay haddana ilaa 15 qol kale in la dhiso dhul iskoolku lahaa oo u sharcaysnaa oo aan ku niri dhulkaasaan haysanaayo noo dhisa oo la rabay in laga dhiso yaa qolooyin adugu waxay yidhaahdeen dhulka annaka lahaan jiray oo xabaday usoo qaateen reer nugaaleeda marka waa la awoodi kari waayey iyaguna ma fahmin war iskoolkan caruurtiina iyo dadkiina wax ku baranayee dhulkaas u sharciyeysan faraha uga qaada marka jarmankii waxay yidhaahdeen haddii dhulka aadna tidhaahdeen iskoolkaa leh waa kaas oo wuxuu ku jiraa shaki buu ku jiraa
marka mashruucii waa ka wareejinaynaa waxay aad ula yaabeen waxay yidhaahdeen war dhismahan aan idiin dhisayno oo tirada badan dadka jarmalkaa baa laga soo arooriyey oo idinku soo deeqay marka idinkuna inaad dhulkii u diidaan aad baan uga xunnahay bay yidhaahdeen marka mashruucaas waa laga wareejiyey waxay yidhaahdeen marka dhulkii haddaad heshaan mustaqbalka wax kale waa laga filmood mashruucaas xaggee u wareejeen hadday wareejeen mashruucaas waxay yidhaahdeen wax ma wareejinaynaa Hargeysa iyo meelo kale ama wareejinaynaa bay yidhahdeen marka saasaa mashruucaas hadda lagu waayay dadkaas iyagaa cid qabata miyaa la waayay dadkaas weli xal looma helin adigu odayaal badan iyo dad waxgarada badan baa galay laakiin weli xal looma helin ugu dambeyntii injineeri maxaad dhihi lahayd dadka fursad u helo inay barnaamijkan ay daawadaan oo ay dhegaystaan farshiinta aad gaarsiin lahayd maxayse tahay dowladda Puntland waxa aad rabto inaad u tiraahdo aad iyo aad bashayna u mahadsan tahay horta fariinta Soomaaliya aan gaarsiinayn waxa weeye ur ilaahay caqli iyo maskax inuu ina siiyey inaan ku isticmaalo weeye hadda saan ognay nin baa caddaan ah oo Maraykan buu qoray wuxuu yidhi caddaan haddaan nahay waa yaraanaynaa oo hadda ma dhalno ama hadda waxay gaareen inaanan guursan haddii caddaanku dhammaado adduunkani gablan buu noqonayaa wax fakeraya iyo wax shaqeeya la heli maayo marka maxaan ku tashanaa waxaa lagu taliyay marka mashiinka aan tababaro mashiinka sida bani aadam u fakeraya aan soo saaro hadda alternative intelligence wax la yidhaahdo yaa la soo saaray ama maskaxda maldahan wax la yidhaahdo Soomaaliya lagu yidhaahdo waad aragtaan waa droneskaas iyo robot laga dhigay sidii bani aadam qof oo kale laga dhigay waa hadlaya waa fakeraya waxaa la soo saaray hadda eeyo taangiyaale oo kumayaal ay oo taangiyaale oo hubkaas meel kasta ay tagaan ku baabiinaya yaa la soo saaray marka maskaxdii bani aadamka waxa la geliyay mashiinka computer iyo robotskaas la geliyay marka bani aadamku saas uu fakeraya innakuna inaan fakero haddaan Soomaali nahay waa muhiim fakrigaas weligeed ma fakran ku jirnaa weligeed ma gacantan horsanaynaa inaan sidaan isku dhaanno oo isku ilaahay wuxuu ina siiyey dahaba oo khayraad ka buuxo bad iyo biri iyo xoolo waa inaan ka faa'iidaysanaa dowladda Puntland waa mahadsan tahay waxaan oran lahaa hal iskaashado ganacsato wadaado waxgarad aqoonyahan hal iskaashado dhalinyaradan kumayaalka ah oo ku fakeraya taariikh dhalinyaradina 70% waxay ku fakerayaan taariikh marka in la wax la baro oo farsamo loo baro oo la yiraahdo shaqaysta waa muhiim marka taladaydu waxa weeye war mustaqbalka bani aadamku wuxuu ku jiraa farsamada gacanta aan ku mintin farsamada gacanta barnaamijkii maanta intaas ayuu loogu dhan yahay oo warbixinta aan uga diyaarinaynay dugsiga macadka farsamada gacanta ee magaalada Garowe aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay aad iyo ma sha Allah maxamedna waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantihiin